محمد دربوينه راديو حرية مينيابوليس. راديو كارامنا محمد بن أحمد راديو حرية سان أفريقيا. هل تجد راديو حرية لندن UK. jaaliyada ogaadeenaya ee dalka koonfur afrika waa jaaliyad xoog badan isla markaana wadankan howlo badan ka qabata. maxamed faadil waa siyaasi ka tirsan jaaliyada koonfur afrika waana madaxa diblomaasiyadda ee jaaliyada joka. maxamed kusoo dhawow radio xorriyo. aad iyo aad baad umahadsan tahay. maxamed su-aasha horeysan ku weydiinayno dalka koonfur afrika oo wadan ballaadan aadna u furfuran sida aad kaga dhawaajinayso dadka reer koonfur africa aqoon-yahamiinta siyaasiyiinta dadka caadiga ah iyo jaaliyada koonfur africa xidhiir intee lag baa udhexeeya? waa su-aal aad iyo aada u wanaagsan. intii aan jaaliyadeenu aasaasnayd aan wadanka joognay waxaa jirtay xidhiidho fara badan. xidhiir dhinaca bulshada lala leeyahay baa jiray. xidhiir dhinaca waxaa jiray lala leeyahay qaybaha siyaasadda ee dalka ah. xidhiidho fara badan oo noocaasa baa jiray. sida aad og tahay waxaan aasaasnay oo laamo katan uga sameynay ururkii dhalinyarada oo qeyb lixaadna ka qaatay isdhexgalka bulshooyinka iyo gaar ahaan dhinaca meelaha academicska sida jaamacadaha oo kale iyo dugsiyada sare iyo macadada. waxaad arkaysa isbuucan u dambeysay in ururka dhalinyaradu ay kulamo fara badan ku qabanayeen jaamacadda dhexdeeda. aqoon-yahamiin professora ay kamid ahaayeen ayaa kamid ahaa dadkii ay la kulmayeen ee arrinta ka dhaadhicinayeen. dhinaca siyaasadda waxaa jirtay xafiiska anigu aan ka tirsanahay hawlo fara badan baa uga furfurmay wadanka dhexdiisa. xidhiir joogta ah baan leenahay. waxaan odhan karnaa waxaan ka ahayn dawlad la-aanta aanaan dawlad ahayn. sida kale waxaan la simanahay diblomaasiyiinta ethoobiyaanka oo meeshan jooga. xafiiska ay tagaan ee riboortka geeyaan baan anagula geynaa. waa naloo yeedhaa sida iyaga loogu yeedha markii wax macluumaad oo dheeri ana laga rabo. culamada caalamiga waana lagu casuumaa waan ka qayb galnaa. waan simanahay un baan odhan karnaa. waxaana taa laga dareemi karaa dhinaca warbaahinta wadankan jaraaid hadday tahay iyo haddii ay tahay idaacadaha iyo telefishinkaba aad ba qadiyadeena udhex taallaa. waxaa jira u ololeeya oo south africana oo arrintan laga dhaadhiciyey oo khayr alla ha siiye dadka communityga activistska halkan jooga ay ka hawlgaleen. marka xidhiirka dhinaca siyaasadeed iyo bulshada waa xidhiir aada u taabagalay. intii aan dacwadan dhiibnayna waxaan ku guuleysanay inayna taageeraan ururo fara badan oo duuli ahayn oo ururada la yidhaha NGOska kuwa xuquuqul insaanka u dooda iyo kuwa saxaafadda u doodaba. ururo fara badan oo hadda waxaa jira qadiyadeenu hor taalo oo mar kasta ka hadla. bilaha soo socda insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa jaamacadaha waaweyn mid kamid a ama University of Joburg ama jaamacaddan kale ee la yidhaahdo University of South Africa. labadaas jaamacadood midkood inaan ku qabano workshop ogaadaya ku saabsan iyo habka looga hoos bixi karo dadkaana xuquuqooda loogu raadin karaa inaan kuano yaan ku tala jiraa haddii a la yidhahda. guud ahaanna waa xidhiid aada u wanaagsan baan odhan karaa xidhiidkaan la leenahay bulshada reer koonfur africa. waxaad ka warantaa xagga safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah ayada wax xidhiir ood la samayseen ama wax xidhiir ood la leedihiin ma jiraa ka jaaliyad ahaan iyo ka urur dhalinyaro ahaan iyo kalaan diblomaasiyad ahaan? cumar si aad og tahay wadankan markaynu joogno community ahaan waxaan uhawlgalaa hab dawli ah. waxaan uhawlgalaa hab lamid ah kan ay safaaraduhu uhawlgalaan. waxaana saaran waajib ah inaan matalo ogaadenya marka aan joogno koonfur africa oo haddii safiirka ethoobiyaanka iyo halkan wadankiisi ka matalayo annaguna waxaan matalaa wadankanagii. waxba haddaan doono calan yaanaan lahaanin aqoonsi caalami ana yaanaan haysanin. sidaas daraadeed wax kasta oo xafiisyada diblomaasiyiinta u ay qabtaan waan qabanaa. safaaradaha caalamka waan la xidhiidhnaa. waan gaadhsiinaa wakti kasta oo dhibaata soo jirto cidda ay khusayso waan ugeynaa. waxaa jirtay safaarado badan oo halkan jooga oo matalan wadamada ashiyada fog ku yaala iyo wadamada latin america iyo kuwa yurub aba oo aada moodeysa marka hore inayna qadiyada aada u ogeyn. inaan markaan kulanay ee warbixino badan siinay inay safaaradahoodii la xidhiideen addis ababa ahaa oo ay ku dhiirigeliyeen inay arrimaha baaris ku sameeyaan. waxayna noo sheegeen qayb badan oo iyagii kamid yihiin inay soo xaqiijiyeen waxyaabahan u sheegayna inay run yihiin. safaaradahoodiina hadda hawlo cusub ay Ethiopia ka dhex wadaan oo hadda wixii ka dambeeya ay mar walba isku dayi doonaan inay ogaadaan waxa dhabta ah ee aan ahayn waxa ay xukuumadda Ethiopia fidinaysa ka jira wadanka ay ogaadaan wax kasta oo ku dhex qarsoon
qarsoon dhulkaaga odoonsan ee ogaadeenaya marka waan la shaqeynaa xiriir caalami ah baan leenahay oo dadka shisheeyaha ee wadamada kale kasoo jeeday halka nala jooga nagala dhexeeya. maxamed wadankan koonfur africa waxaa kusoo qaxay dad afrikaan oo aada fara badan dabcan xukuumadda EPRDF waynu wada ognahay inay ay dadka shacabka uga soo qaxeen ee ethoobiyankii oo dad badan oo ethoobiyan ay wadankan joogaan dadkaa kasoo qaxay Ethiopia asalkooda ethoobiyaanka yahay qoomiyadaha kala gedisan ka kooban community leeyihiin xiriir intee leeg baa noo dhexeeya ka jaaliyad ahaan communitiyada ethoobiyaanka ee oromada iyo axmaarada iyo tigreega cid kasta leh. xiriir aad iyo aad u wanaagsan baa nagala dhexeeya qowmiyaadka Ethiopia ku dhex dulman ee wadankan jooga sidaad ogtahay Ethiopia waxaa lagu qiyaasaa dadka hadda halkan ka jooga inay ku dhow yihiin nus milyan koonfur Africa usoo qaxay qowmiyadaha ay kasoo jeedaana waxaa ugu badan Oromia iyo shucuubta koonfureed qolyaha la isku yiraahdo ee isku xidhantaa xiriir fiican baa nagala dhexeeya waan kulanaa waan sheekaysanaa waxaan ka wada hadalnaa mar walba sidii aan u wajihi lahayn wax kasta oo xukuumadda ka dhanna waxaa tusaale loo soo qaadan karaa bisha 23 mudaharaadkii weynaa ee Santon ka dhacay waan ka wada jirnay waan ku midaysnayn waa kaad arkaysay waxaan go-ay Mele Zenawi oo diiday inuu ka qayb galo shirkii lagu dabaaldegayay toban guuradii aasaaska ururka midowda Afrika ee AU-da loo yaqaano waxaa jiray mudaharaad ka horeeyay oo 22 bishaan isugu soo baxnay awoodeena midnimo ku muujinaynay waxaa nala joogay jaaliyada Eritrea kasoo jeeda tii Oromia tii Ogaadeniya iyo qowmiyada kaleba maalintii 24 bisha ahaydna mudaharaadkii aan ugu magac darnay jaaliyada Ogaadeniya ee horkacaysay safaaradda Ethiopia aan ku go'doominay waxaa nala socday dhammaan qowmiyaadka kale Ethiopia oo calanka Ogaadeniya ku labisan baa nala joogay waxyaabahaas oo dhan baa laga dheehan karaa midnimada iyo is-aaminaada iyo habka isku tashiga ah in u wada shaqeyno annaga iyo qowmiyaadka kale ee Ethiopia ku dhex dulmanay meesha jooga inta kaliya ma aha dhammaan qowmiyaadka ajnabiga ah ee koonfur Africa jooga xiriir guud baan leenahay hadda bisha 20keeda waxaa dhici doona mudaharaad weyn oo milyan match aan u bixinay oo doonayna 1 milyan oo qof inaan isugu keeno oo dhammaan dadweynaha dulman ee caalamka oo dhan kasoo jeeday koonfur Africa ku dhex nool ah mudaharaadkaas waxaan kusoo beegnay maalinka dabaaldega qaxootiga adduunka la yiraahdo oo anagu aanu u bedelay maalinka baroordiiqda adduunka aanu u bedelay anagoo ah dadka immigrantska ah ama soo galootiga ee wadankan jooga oo qolo walba dhibaato gaar ay haysato waxaas oo dhan markaad isku wada dardarto waxaad arki kartaa qadiyadeenu inay xiriir fiican la leedahay dhammaan bulshooyinka caalamka oo dhan. maxamed mudaharaadkaas halkuu ka dhici doonaa magaaladee? mudaharaadka wuxuu ka dhici doonaa caasimadda maamulka ee koonfur Africa Pretoria magaalada la yiraahdo waxaana dhici karta inkastoo weli la cayimin goobaha la tegi doono in guriga madaxweynaha hortiisa la tago ee aad iyo aad ugu badan tahay waxaanu rajaynaynaa maalinkaas in ay bedesho jawiga guud ee adduunka oo dhan u dabaaldegaya ee yiraahdaan maalinta qaxootiga adduunka oo annagu aanu ka dhigi doono maalin la baroordiiqo meesha ay ka ahaan jirtay maalin xaflada iyo bandhigyo iyo waxyaabahaas lagu xuso. mudaharaadka ayaa maalgelinaya ama siya abaabulaya? waxaa abaabulaya qowmiyado fara badan oo isu tegay oo Ogaadeniya ay kamid tahay waxaa jira 5 guddi guddida saadka guddida abaabulka mobilizationka guddida fundraisingka guddiyo kaleeto oo fara badan oo dhinaca miidiyaha iyagana qayba ah howlahaas oo dhan waxaa wada hogaaminaya guddiyo ama xubno ka tirsan jaaliyada Ogaadeniya waxaanu nahay cudurda ugu weyn ee horkacaysa mudaharaadkaas wixii dhaqaale ay ku baxayaan wuxuu noqon doonaa waxay bulshadu caadiga iska kaashato way jiraan ururo aan dawli ahayn oo nala socda oo laga yaabo inay gacan ka geystaan mudaharaadka goobjoogayaalka ahaan doona laakiin waxaan ku tashanaynaa waxa weeyaan anaga jeebka naga marka koobaad. ka dhegaysa raadiyo xoriyo wararka iyo warbixinadii u dambeeyay faallooyin iyo barnaamijyo xiiso leh raadiyo xoriyo codka shacabka Ogaadeniya xiriirka ka dhexeeya wadanka koonfur Africa oo qaaradda Africa xoog badan ku leh wadan xagga dhaqaalihi iyo xagga siyaasadda ku horeeyana iyo wadanka Ethiopia xiriirka ka dhexeeya muxuu yahay intaad ka warayso? bismillaahir rahmaanir rahiim marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa idaacadda raadiyo xoriyo iyo howlwadeenadeedaba jaaniskan ayna siiyeen marka labaad su-aashaada haddaan ka jawaabo xiriirka u dhexeeya labadan wadan
وأنحديد استيتشيا متشت واحدة نوعها أدق ولا ما ضل مدنا كلا وكله هي أو كفر المثل اللي ما ده ولا جودة أفريقيا والنهاية سارهان دل كان كفر أفريقيا وبعد بدن كي هلن كان دل كاس إلا هذا واحدة ما يجي مثل لما كان سوق هذا ما كفر أفريقيا ganacsatada waxay maal gashadaan wadamada Uganda, Kenya iyo wadamo kale oo iyaguna ku yaala qaybta koonfurta iyo kuwa bariga fog ku yaalaba Ethiopia wax ganacsi ah oo ay ka sameeyeen dadka maal gashadayaashu dhinaca xiriirka diblomaasiga waa laba wadan oo nidaamyada ay ku kala dhisan yihiin aad u kala fog yihiin مثلا koonfur Africa marka ay taageerto horumarinta doorashooyinka xorta ah iyo in madaxweyne Afrikaan ah laba jeer ka badan aan la soo dooran karin Ethiopiaanku waxa ay taageeraan in dal waliba wixii uu doono uu sameeyo dhinaca marka siyaasadda iyo hababka dhaqanka dawliga ana aad iyo aad ugu kala bedelan yihiin markii laga hadlayo ururadan caalamiga ah ay ka wada tirsan yihiin sida midowga Afrika oo iyo ururkan dhaqaalaha Afrika oo dhan hadda loo sameeyay iyo ururada kale ee caalamka waa ku kala bedelan yihiin in badan doodaha ay kala qaadanayaan waxa weeyaan kuwa ku salaysan dal walba waxa dhexdiisa ah مثلا koonfur Afrika oo kale waxay ku dadaashaa oo aad iyo aad ugu ololeysaa in far la ahaado saxaafadu madax banaanaato dadku public participation waxa la yiraahdo ka qayb qaadashada dadweynuhu ay jirto in xisbiyada ay madax banaanaataan oo furaadaan oo qof kasta xisbi uu yeelan karo ama urur kasta ama group kasta arrimaha siyaasadda Ethiopia xisbigan Tigreega wadanka haysta sidaad ka warqabto maadaama tahay nin siyaasi ah hawlahan aad ula socdo waxaa jira waayadan dambe kacdoon fara badan oo dadka shacabka laga dareemayo gudaha Ethiopia sida magaalada Addis Ababa iyo wadanka qurbahaba arrimaha siyaasadda xisbiga EPRDF maxaad kala socotaa waa si go'doonsan tahay siyaasadda xisbiga EPRDF aad iyo aad go'doon ugu jirtaa waxa ka soo horjeeda dhamaan 80 milyan ee xukumi jirtay Ethiopiaanka ahayd yaa si guud uga soo horjeeda kacdoon baana laga yaabaa inuu ka dhaco hadda mar hore taba uu ka bilowday dibadda waxaad arkaysay Mele Zenawi markuu yimid America wixii ku dhacay waxaa kaloo arkaysay koonfur Afrika oo 3 shir oo caalami ah uu doonayo inuu kaga qayb galo intii inuu suurtageli wayday waxa uu suurtagelin waayay isku hortaagayna waxay ahaayeen dad ka soo jeeda Ethiopia kaliya ogaadeen lagu daray oo ay ka mid tahay shirkii la doonayo inuu ka khudbeeyo Tabo Mbeki Foundation University of South Africa habeenkii lagu waday inuu ka hadlo oo uu jeediyo khudbada sanadlaha ah ee Tabo Mbeki madaxweynihii hore ee koonfur Afrika uu sanad walba qof ku macsuumay madaxweyne Afrika ah Mele Zenawi uu iman kari waayay waa kii aan fadhilay safka hore madaxweynayaal 5 ah oo Afrikaan ah iyo 7,000 oo arday iyo diblomaasiyiin iyo wariyayaal isugu jira meesha fadhiyay waxa ka mid ah Ethiopian oo suxufiyiin waxaa xusid mudan in Ethiopian oo professor ahaa oo meesha joogay oo dadkii aadka looga caawiyay ninka inaan isku hortaagno jaamacadda inuu galo aakhirkiina waa weeydo waan ku guuleysanay siyaasadda marka waxa ku muuqata inay fashilan tahay oo ku go'doonsan tahay uu kaliya militariga iyo awoodda uu ku leeyahay Ethiopia dhexdeeda balse aanay jirin hadda wax Ethiopia ka soo baxsan ama xarumaha ciidanka ee iyagu xoog ku haystaan ka soo baxsan oo ay ka talin karaan ama wax laga dhageysan karo waxaan rabaa inaan xuso markii uu ka jeedin lahaa Tabo Mbeki Foundation khudbada haddii uu u hirgeli lahayd Mele Zenawi siyaasad fiican baa u gadmi lahayd laakiin habeenkii waxaa dadkii oo dhan ogaadeen in ninkaasi uu yahay nin ayna dadkiisu rabin dalkiisana xoog uu ku joogay cid doonaysaa oo uu kalsoonideeda wadanka ku haysta ayna jirin marka meelaha ay xoogga ku haystaan ee wadanka dhexdiisa ah iyo ka sii jiraan sida caadiga ah siyaasadaha caalamka marka hore wadanku madaxweynuhu ama xukuumadda ama xisbiga tala haya siyaasaddu waxay ka soo burburtaa meelaha ay influence ku lahaayeen markii hore caalamka Mele Zenawi waxa arkaysaa marka inuu caalamka siyaasadiisu ka soo wada xidhxidhantay meelaha uu ciidamadiisu joogaan kaliya unbay ku egtahay taasna waxaan rajaynaynaa ciidanka dhexdiisa inay ka dhici doonto waxaa kaleeto oo iyaduna aad la yaab u lahayd markii aanu hortaagnayn mudaharaadkii quusiye safaaradooda horteeda waxaanu arkaynay dad dhalinyaro oo safaaradda ku dhex jiray oo soo buqanayo inay sawirro ka qaataan doonayay oo ay duubtaan oo safiirkii meesha joogayna uu canaananayo celinayo marba ay ku darayo oo dib qolalka uu ugu celinayo waxaa marka noo muuqatay inay ahaayeen dad shaqaale safaaradda ah laakiin u qalbi jilicsan oo doonaya inay dhegeystaan dadkan wuxuu leeyahay marka dadka iyaga xitaa la shaqeeya ee haystaan waa in inta ka cabsanaysa inta taageersan ma jirto cid kaliya laab u haysa oo siyaasadooda maanta doonaysaa inay wadanka kasii taliso
mana rajayn karno, mana jirto sabab aynu u rajayno inuu xukuumaddan ka badbaadi doonto waxyaabihii riday xukuumadihii isaga ka xooga badnaa ee koonfurta qaaradda ku yaalay sida kii Masar iyo kii Liibiya iyo Kooyowga la midka ahaa oo dhan. kacdoonkaana waxaan arkaynaa mar horeba inuu dibadda kasoo bilowday, inuu gudaha kusoo dhoofo oo dadku cabsidu ay ka baxdana waan sugaynaa wakti dhow haddii ay baydmo. halgama waxaa jiray 7 bisha 2012 dacwad ay gudbisay jaaliyadda Koonfur Afrika una gudbisay wadanka Koonfur Afrika iyo maxkamadda caalamiga dacwadii xagee maraysaa hadda xilligan xaadirka la joogo, maxaa idin qabsoomay, maxaa caqabadadan ka hor imaaday? runtii ma jirto wax caqabada oo ilaa hadda naga hortimid. caqabada keliya waxay ahayd markii aanu dacwada dhiibaynay oo waxyaaba judiciary oo dhinaca sharciga ku saabsan oo muran ka taagnaa. markii aanu dacwadii gudbinay intii ka dambeysay ma jirto wax caqabada oo nagu timid. mana jiro wax go-aan oo weli kasoo baxay oo dhinaca Koonfur Afrika ah. maxkamadda sare iyo dacwadii weli ku laalan tahay. xeerbaarayaashu sida aan horay idinku sheegnay saxaafadda aad iyo aad bay ay u cuslayd. macnaha dacwadda aan meesha geynay 700 oo page bay ka koobnayd. waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in la daraaseeyo oo dabeetana baaris lagu sameeyo. ciddii hawlaha ku jirtay waxaan isleenahay waktigu weli ma uuna gaadhin ay go-aan ka gaari lahaayeen. laakiin waxaa mudan in la sheego dacwadteena lamid ah oo ay gudbiyeen jaaliyadka kasoo jeeda dalka Zimbabwe oo ay kaga cabanayeen madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe ayaa jirtay iyaduna waa muddo dheer ka taagnay doodi ka taagnay dalka Koonfur Afrika dhexdeeda. dacwadii way guuleysatay waxaana amar lagu siiyey booliska Koonfur Afrika iyo xeer ilaaliyayaashu inay baaris degdeg ah ku sameeyaan. maxkamadaasina waa bilaabatay. runtiina markii nalaga qaaday annaga dacwadan waxaa nala xusuusiyey inay dacwadaasi jirto isku wada uun marayaan. rajadeenu markay aad bay u fiican tahay in dacwadeeni goorta ay baaritaankeedu dhammaato dhegeysigeedu uu si dhaqsaa u furmi doono. halkan aad leedahay xagga sharciga ay doodi ka taagnayd, halkaa bal u yar qeex dadka ku dhageysanaya. waa sax weeye. waxaa jirtay markaan dacwadda dhiibaynay waxaa la yidhi dadka qaxootiga ah xaq uma laha iyo ayay dhahayeen dadka qayb doodaysay. matalan xeer ilaalinta Koonfur Afrika qayb kamid a waxay soo jeedisay in dal Afrikaana dad kasoo qaxay oo halka yimid nabadgelyo la siiyey oon weli muwaadiniin noqonin inaan dacwadooda halkan lagu qaadi karin Ethiopia keliya lagu qaadi karo ama dalkii kale ay kasoo jeedaan. qolo kalena waxay odhanaysay qof kasta oo halkan yimaadaa wuxuu la mid yahay qof kasta oo muwaadin ah oo dalkan kusii noolaa. halkaas bay doodu maraysay. markii u dambeysay waxay noqotay isugu soo diyashubatay inaan xaq u leenahay dacwadeena in la dhageysto oo la qaado oo ina jirin waxaan ku kala bedelanahay annaga iyo muwaadiniinta wadankan joogna maadaama ay Koonfur Afrika ahayd wadan kamid ah wadamadii saxeexay heshiiskii Rome ee lagu aasaasay maxkamadan caalamiga ah ee Hague. maxamed dadkan maxkamadda caalamiga ah ee hortaalo ee wadanka Koonfur Afrika maxkamadiisana aad gudbiseen dadka ay yihiin bulshada ma sheegi kartaa noocay ka kooban yihiin? waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. hadda ka horna 100 jeer iyo marar badan baa nalaga codsaday inaanu sheegno magacyada dadka dacwadeysanayaasha ah. kuma fiicna hadda inaan ka sii sheegno cidda ay yihiin waayo dabin baan dhignay oo qoolay. waxaan doonaynaa inayna magacyadooda bedelin. hadda waxaa dhacda marka ay soo safrayaan oo kale ninkii og inuu dacweysan yahay magac kale inuu kusoo safro. marka goortan dambe waxaan u go-aansanay magacyadooda inaanaa sheegin, laakiin si kooban waxay kamid yihiin madaxda siyaasadda iyo madaxda militariga. labadaasay ka kooban yihiin. kilal baa ku jira, madaxda militariga oo heerar kala bedelada baa ku jira, madaxda ugu sarreysa siyaasadda ee TPLF iyo EPRDF baa ku jira. wixii harsan intaa ka baxsan waa faahfaahin aanaa rabin in ay hadda gaadho dadweynaha annaga oo dabacsan inay noqoto arrin qarsoon oo salaadii cidka loo galay uun ku ahaato cid kasta oo timaada Koonfur Afrikana ay lugta la gasho haddii la yidhaah. Axmed, su-aasha ugu dambaysa waxaad ka codsan lahayd shacbiga reer Ogaadeniya ee ku dhageysanaya gudaha Ogaadeniya ku sugan warbaahinta faraha badan ee wadamada kala gedisan kasoo baxda aan nasiibka u yeelanay ama akhristaan ama daawadaan ee laga go'doomiyey? waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. aad baan u jeclaan lahaa in shacabka Ogaadeniya ay ogaadaan oo ay maqlaan in meesha ay ku go'doonsan yihiin sidaa ay tahay una in rajadoodu ahayn in adduunka oo dhan laga ogyahay maanta in Ogaadeniya ay go'doonsan tahay. qofkii la dilayo in la dilay la ogyahay, gabadhii la kufsaday adduunka oo laga ogyahay.
bulshadii reer ogaadenya ee dibadda joogtayna dagaal aan habeen iyo maalin kala go' lahayn ay ku jiraan. waxaan ka codsan lahaa inay u dhabar adaygaan oo ay u adkaystaan oo ilaahayna ay u samraan muddada uu halgankani socdo inay is odhanin waad cunaqabataysan tihiin, raashinkii waa laydinka xiray, saxaafadii adduunka oo dhan baa laydinka joojiyey, cidi idinma oga. waxaan u sheegi lahaa in wax kasta oo dalka dhexdiisa ka dhaca la og yahay oo adduunku la socdaan la iskula la xisaabtami doono. waxaan jecelahay inaan fahansiiyo in maxkamad caalami ah uu kiiskeeni yaallo oo beri dhow la filaya in loo yeedho madaxda Ethiopia oo dhan. waxaa kaleeto oon ciidanka xoreynta Ogaadenya u sheegi lahaa in bulshaweyntii reer Ogaadenya ee dibadda ku noolay ay kacdoon dibadda ka bilaabeen, lana harsanin oo la fariisanin safaaradii Ethiopia inay shaqayn kari laayihiin. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Mala Zanaawi oo soo baxay inuu waayay cid uu la hadlo iyo meel istaagiyo meel uu ku gabado, habeen iyo maalin inaan fariisanin oo ordayno. dagaalada iyo jugta mirta iyo kamiinta ay ciidamada Ogaadenya wadaan waa shidaalka koowaad ee ku kicina bulshada reer Ogaadenya ee dibadda joogta. waxaan ugu hambalyeyn lahaa dagaaladii ugu dambeeyay ee hadda cadowga la galeen ay ku naafiyeen. waxaana u sheegi lahaa martidurayaashii shahiidayna inaanu aada ugu ducaynay bulshadii reer Ogaadenya ee waddanka dibadiisa ku noolayd inay u noqotay dhiirigelin cusub oo nin kasta oo dibadda ku noolaa oo Ogaadenya ka soo jeeday maanta uu aaminsan yahay ciidanka Ogaadenya inuu xorriyad buuxda gaarsiin karo ummadda reer Ogaadenya. kaasi wuxuu ahaa hogaanka diblomaasiyadda ee jaaliyadda koonfur africa maxamed faadil. maxamed aad iyo aad baad mahadsan tahay. xulashada warkiiyo xigmadkii rabo ku xidhna oo xorriyo.